ugu dambeyn fasalka labaad ee dugsiga sare ee iskuulka Al Surca ayaa waxa ay ku guuleysteen koobka sanadlaha ee lagu qabto iskuulka Al Surca Form 4 Cup iyadoo ay jireen fasalo kooban oo sameeyay dadaalo ay ku doonayeen inay ku guuleystaan balse waxa suurta gashay sanadkan in guuleystaan fasalka labaad ee dugsiga sare Form 2 waxaana xusid mudan in ay kaga guuleysteen martigeliyaasha sanadkan ee Form 4 ciyaarta markii ay bilaabatay labada fasalba waxa ay doonayeen inay ku guuleystaan iyadoo dhan kastaba ay ku wanaagsanayeen fasalka labaad marka laga eego kubadda iyo isku dayga balse labada fasal uma aysan suuragelin inay goolasha iska dhaliyaan qaybtii koowaad ee ciyaarta ayaana sidaa ku soo ildaatay barbaar dhac gool la'aan ah hase ahaatee kolkii la isugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta fasalka Form 4 ayaa waxa ay sameeyeen laba bedel halka fasalka labaad ee dugsiga sare Form 2 aysan wax bedel ah sameeyeen daqiiqada kadib ciyaarta waxa ay noqotay mid cajiib ah taasoo ay sababteen in fasalka labaad ee dugsiga sare Form 2 ay la imaadaan gool kaasoo ka yaabiyay dhammaan jamaahirta ku sugnaa garoonka waxayna kubaddaas ka heleen ciyaaryahankooda Muuse Cabdi Cusmaan daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta fasalka Form 4 ayaa waxay la imaadeen goolkoodii bareejada goolkaasoo ahaa mid muran badan dhaliyay inta kadib ciyaarta ayaa waxaa la isla gaaray goorayaal iyadoo goolhayaha fasalka labaad dugsiga sare Cabdiraxmaan Maxamed Cusmaan uu fasalkiisa u badbaadiyay laba gool halka ay ka dhalatay hal gool isla mar ahaantana waxa goolka guusha u dhaliyay fasalka Form 2 ciyaaryahaankii hore Muuse Cabdi Cusmaan ahaana geesiga garoonka ugu wanaagsan sidaas ayaana waxa ay ku noqdeen geesiyaasha iskuulka sanadda 2019-2020 waxayna mudnaan gaar ah u direen dhammaan maamulka macallimiinta iskuulka iyo taageerayaashoodaba kuwaasoo ka saaciday ku guuleysigooda koobkani.